asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maalin wanaagsan khayarta wada nagala xirta halkan oo barta youtube-ka aad maalin walba nagala socotaan. maantana waxaan soo qaadan doonaa madaxda maamul goboleedyada iyo shirkii lagu waday in garowe ka dhaco ay kulmaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo fashilmay kadib markii ay madaxda maamul goboleedyada ay diideen inay ka qayb galaan shirkaasi. madaxda maamul goboleedyada ayaa marka hore la qorsheynaya in lagu qabto shirka magaalada muqdisho, kadibna is-afgaradwa oo ka dhacay meeshaasi ay madaxda maamul goboleedyada ay diideen loo weeciyey dhankaasi garowe. waxaana la rabay inuu dhexdhexaadiyo ninkii la yihahdo saciid cabdulaahi deni, taas oo iyadana laisku afgarta marka hore. ugu dambeyn madaxda maamul goboleedyada ayaa diiday inay badaatanba la kulmaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. waxay leeyihiin madaxweynaha xasan sheekh maxamuud haddaan la kulanno dagaal ba-an ayaa naga dhexeeyo, weji aan ku hortagno xasan sheekh maxamuudna ma lahan. wayna ogyihiin in lagu soo socdo. marka madaxda maamul goboleedyada waxay dhaheen anaga xasan sheekh maxamuud lama kulmayno, badaatanba ma ogolin inaan is aragno. marka isqabqabsi iyo dood dheer kabacdi waxay sheegeen saciid cabdulaahi deni wuxuu ku dhawaaqay in madaxda maamul goboleedyada intooda badan ay diideen. ugu yaraan 3 maamul goboleed ayaa diiday inay imaadaan oo ugu horey lafta gareen. marka xaalku fara kama qodno. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna xaalku waa kusii xumaanaya haddii isfahmi waa ay dhex mara madaxda maamul goboleedyada. sheeg xaalku waa kusii xumaan doona sababtoo maamulkiisa iyo nidaamkiisa dowladnimada ayaa ku xiran in madaxda maamul goboleedyada uu la shaqeeyo. marka taas haddii meesha ay ka baxdan waxaa isku soo dhawaanshihii meesha wuu ka dhamaanayaa. muddo fara badan ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya haysan jireen. waqtigii maxamed abdullaahi farmaajo la xasuustaa madaxda maamul goboleedyada inkastoo 3 kamid oo heshiis la ahaa, koonfur galbeed iyo nimanka la yiraahdo ee hirshabelle saaxiib ayuu lahaa, iyo galmudug 3daas oo saaxiib la ahaa, jubbaland iyo puntland ku kacsanaa. marka kaas waxaa la dhihi karaa wuxuu haystay dadka ugu badan, madaxda maamul goboleed intooda badan oo haystay. laakiin xasan maxamuud uu ka duwan yahay, wuxuu hal maamul goboleed oo u haysta ma jiro. hadda puntland ayuu tegay, puntland tegitaankeeda oo tegay xataa hiruweytay ku ahayd, laakiin inay shirka macnaha ay meesha ku qabtaan oo ayaga mas-uul ka noqdaan oo shirka qabanqaabiyaan bis ahaan intaasa la isku afgarta moogay. laakiin wanaagga xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdulaahi deni ka dhexeeya meesha ma oolin. qaabkii la rabay in loo soo dhaweeyo madaxweynahan looma soo dhaweynin. marka mar walba dood ayaa halkaas ka taagan oo isqabqabsigu waa badan yahay. marka waxaa laleeyahay marna iskuma soo dhawaan karaan madaxda maamul goboleedyada xasan sheekh maxamuud. mawjado siyaasadeed oo fara badan ayaa ka socda halkaasi. muddo fara badan ayaana halkaas laga soo sheegayay inay isqabqabsigan oo jiro. mar isku soo dhawaansho wuu jiray, laakiin hadda ma jiro. marka waxaa laleeyahay maxamed abdullaahi farmaajo isla ridnay, haddana xasan sheekh maxamuud aan kasoo horjeednaa. marka madaxda maamul goboleedyada waxay ku fikireen sida xasan sheekh maxamuud lagu ridi lahaa. hadda magaalada muqdisho aniga shalay ugu dambeysay waan kasoo tegay. waxaa laleeyahay madaafiic ayaa lagu garaacay oo magaalada muqdisho ayaa dhan madaafiica ku socotay. marar fara badan qaraxyo way ka dhaceen. dagaalka hotel xayaad waa la socotaa. madaxweynaha soomaaliya waxaa umaleysaa mawjado siyaasadeed oo fara badan oo xaalad adag ah inuu dhexgalay. marka dadka waxay leeyihin xasan maxamuud ma rabno, saan waay nolosha uu nagu dhibay, waxba ma taraayo, wuu aamusan yahay, si aamusnaan farmaajo ku nacna, aamusnaan wax ma tarayso. marka waa hadlan waxay leeyihin ballanqaad been uu noo sameynaa, xasan maxamuud dhib uu nagu hayaa. marka dood fara badan ka dhalatay qaabka iyo nidaamka dowladnimada xasan maxamuud. waxay leeyihin xamse cabdi barre waa nin baraf ah, xasan maxamuudna waa nin isagana baraf kasii daran. marka laba barafaa meesha la joogto, madaxtooyada iskaga xariisan yihiin, dhaqdhaqaaq ma lahan, ciidamada howlgalkooda zaid ma aha, joogto ma aha. inkastoo meelaha qaar ay howlgallo badan ka sameyn ciidamada, laakiin hadda waxaa leeyahay xaalku sidoo hore ma aha. ani magaalada muqdisho intaan ku sugnaa, horta been lama rabo, magaalada muqdisho amnigeeda caadi ayuu ahaa. marmar wax way dhacayeen, laakiin weli wax dhibaato ah oo aan ku arkay magaalada muqdisho intii aan ku sugnaa ma jirin. muddo 1 bil ayaa magaalada muqdisho joogay. hadda maanta ayaan kasoo maqanahay bis, inta kale waan jooga. okay. laakiin markaa aragtid dadka shacabka qaabka u hadlayaan iyo siyaasadda say u falanqeynayaan iyo fadhi ku-darrada iyo waxyaaba markaa dhegeysatid, taageero weyn xasan sheekh maxamuud ma haysto. aad iyo aad ayay u dhaliilayaan. xataa iskuulaadku kale waxay leeyihin, dadka iskuulaadka waxay leeyihin anaga waxaa naloo keeni jiray waxyaabaha dictionary-ga iyo buugaagta waaweyn oo muqararka loo yaqaano iyo waxyaaba wax lagu barto dhan loo keeni jiray oo loogu keeni jiray iskoolaadka. marka waxay leeyihin xasan maxamuud waxaas kama helno. inkastoo dowladdiisa cusubta 4 bilood ay jirto, laakiin wasaaradda waxbarashada shaqadeeda ma fiicno, sidii loo rabayna wax uma socdaan. marka dhaliilo fara badan madaxweynaha soomaaliya xasan maxamuud loo soo jeedinaa. maamul goboleedyada way kala tageen. meelo badan ayaa ninkaas barashar ka saaran yahay. haddii dowladnimadiisaan ay ku socotana waxaan umaleynaa xasan maxamuud iyo dowladdiisa inay fashilmi doonaan. laakiin nin galaangal badan maahan alla xasan maxamuud oo maamul goboleedyada iyo xagga amniga iyo xagga isbedelka iyo xagga dowladnimada nin aad u galaangal badan maaha. hadda 4 habeen ka hor magaalada muqdisho aan ku sugnaa, madaafiica soo dhacday, dad masaakiin ah ku dhamaaday degmada xamarweyne aan ku sugnaa. isla degmadaas oo dad baa ku dhamaaday, ilaa 7 qofood wax ku soo gaaray, 3 dhimatay iyo 4 dhaawac. dhankaas iyo maxaa la dhahaa isheeg bonder iyo shibisna waa ku dhaceen. marka wax oo hadda magaalada madaafiicaas la tuuraayo iyo habeenkii marmar soo dhacayso oo laleeyahay weli waa mid siyaasadaysan moogiye. amniga guud horta magaaladu waa iska caadi, wax dhibaato kuma arkin. laakiin magaalada aad ay jaam u tahay oo isheeg dadka dhaqaaqooda iyo suuqooda ganacsigooda aad u badan yahay.
bajaajka magaalada aad iyo aad ugu badan tahay. Magaalada haddaad dhex martid bajaaj meel aad ka martid ma arkeysid. Marka taas haddaan ka gudubno, waxaa leeyahay ciidamada Haramcad waxay weerareen deegaanka Basra oo Balcad iyo u dhexeeya Afgooye oo maxkamad ku taallay ururka Al-Shabaab ay halkaas ku lahaayeen. Ciidamada Haramcad dagaal ku qaadeen. Dagaalka foolka fool dhex maray oo waxaa la leeyahay xaaladda isha dhulka ayaa lala jaray shalay galabgaabkii. Ciidamada Haramcadna halkaas waxaa leeyahay maxkamadii ay ku qabsadeen. Maxkamadda halkaas ku taalo deegaanka Basra waxaa looga yeeri jiray dadka ganacsatada ee deegaanka Balcad iyo Afgooye, waxaana loo dhihi jiray halkan imaada waa wixii qarashaad ah iska bixiya. Qof walba oo ganacsi haysto iyo qof walba oo Balcad iyo Afgooye ku haysto centerkooda waa meeshii lagu wici jiray. Marka waxaa la yidhi waa inay imaadaan degmada Basra. Saas halkaas ay baabuur inta raacaan ay tegi jireen. Cadaalada markaas halkaas lagu kala xukmi jiray. Waxaa la dhihi jiray yaa is qabsaday saas ay haystaan, waa la kala go'aamin jiray. Canshuur wixii laga rabaa halkaas ay geyn jireen. Marka maxkamaddii ay ka war heleen, ciidamada Haramcad dagaal ayay ku qaadeen halkaasi. Wayna ku guuleysteen inay meesha qabsadaan. Deegaanka Basra hadda gacanta ku dhigeen ciidamada Haramcad shalay ilaa xalay ku hayaan gacanta. Meelo fara badan oo aaggaasina waxaa waaye dagaal aad u qaraar ka dhacay oo aad bay jilbaha u aasteen inay meesha ay difaacdaan isku dayeen ururka Al-Shabaab, maadaama ay meesha ay tahay meel muhiim ah, haddana kala qaybiso gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ee u tahay xudun. Markii laga soo tago dhanka Balcad oo aad soo aad Afgooye soo aadayso waddo halkaas ka baxda jirto, deegaanka Basra ay sii martaa, beer ay sii gashaa, Afgooye halkaas ka gashaa. Marka waddadaas labadaas magaalo ayay u dhexeysaa, Balcad iyo waxay u dhexeysaa Afgooye. Waana waddo muhiim ah oo marinkeedu aad u muhiim u yahay, baabuurtuna ay maraan, canshuur fara badanna ay kasoo gasho ururka Al-Shabaab, maadaama ay halkaas control ku leeyihiin, maxkamadna ay ku leeyihiin. Marka ciidamada Haramcad waa dagaalkii weerarka ku ekeeyeen. Markay ku ekeeyeen meeshii saasay dagaalka ku qabsadeen ayna ka guuleysteen. Marka waxaa la leeyahay weli meesha hadda ciidamada Haramcad jooga, laakiin hadday kasoo tagaan waa u dhamaatay, sideeda loo qabsanaa. Dhibaatada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya lagu eedeeyo waxaa ka mid ah inaysan meel intay qabsadaan ay joogin. Markay meel qabsadaan muddo ay haysanayaan waa iskaga soo tagayaan, bartiyaa laga miisaa. Marka meeshaada joog waa jugjug, meeshaada joog waa waxa inta badan dhibaatada loo geysto oo aad macnaha lagu dhaliilay ciidamada dowladda waa midaas. Meel haddaad qabsatid inaad joogtid oo ku adkaysatid waa. Marka maanta qabsatay, juhdi ku bixisay, dad baa kaaga dhintay, dagaal gashay. Marka meeshii haddana aad kasoo tagaysaa magaaladii aad iskaga laabanaa meel kale. Meesha waa iska tuulo, laakiin waxay u baahan tahay control. Waana waddo muhiim ah, marin ah. Marka mar walbana ururka Al-Shabaab control iyo xudun ayay u tahay. Dadka shacabkana dhibaato fara badan ay kasoo sheegtaan. Inkastoo la leeyahay cadaalad marka loo doonto ayaga waa isheeg dowladnimada Soomaaliya. Markii la fiiriyo dowladda Soomaaliya qaabkii cadaalad wax u kala goynayso nimankan ururka Al-Shabaab ka dhaamo, sababtoo ah qof uma xaqlinayn, qofna uma eexanayn. Laakiin nimanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa in qof dhulkiisa lagu haysto oo haddana markii dhulka lagu haysto lacag la bixinayo, oo qofkii dhulkaada lacag la bixinaa waa lagu haystaa, lagu leeyahay dhulkan dukumentigaada saan maaha, kan sax maaha, kan sax maaha, maxkamadda isla aadaysiin. Dhulkaada oo saxda ah leedahay, dukumentigaada aad haysato, war ninkan dukumentiga asaga iska leh, dhulkan shaqo kuma leh, bax lama dhahay, lama go'aaminayo. Marka xaalad saas noqota ururka la aada. Markaasaa leeyahay ururka Al-Shabaab waxaan u doonayaa cadaalad dadka shacabka in ururka Al-Shabaab u doonta waxa ku qasbay dowladnimada Soomaaliya, taasoon daacad ahayn. Maxkamadaha mar walba oo jiro dowladda hore dowladda hadda joogtaba maxkamadahooda cadaalad maaha. Waxaa arkaysaa qof gurigiisa xaq u leh 30 sano iyo 20 sano iyo 50 sano degnaa haddana inta lacag la bixiyay guriga lagu qabsaday, muran ku jira guriga. waxyaabahaas kalama fiicno ha laga waantoobo. Aqeer idinkana ku mahadsantihiin la socodkiina barnaamijkeenan. waxaan idinka codsanayaa youtube-keena subscribe, like, share, tana la wadaagtaan. Tani kulanteed dambe xiisle waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.